أنا وقعد ليا مقعيقة يا مقع بلاه محمد أنا جيف عقل كودي عقاشي يدل يردينا أي قرب فرديان وعنا الكنوصة فريساني دورة الريموت وضرورية ويقول ريان دقموي كلا بحيي دستريجي وربكي دستريجي وربكي أنجرينا حرمتي قبل كأوضل حكومة دي هوري balse xukuumadan dambe ay ku soo celisay degmada Boorame oo laga bixiyay degmooyinka laga bixiyay taaniyadoodii iyo hambalyadoodii iyo doorka aan ku leenahay aan soo fadhiisanay halka waxaan hadna u jeedinaynaa madaxweynaha dalka Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo marwadiisa koobaad Amina Waris iyo madaxweyne ku-xigeenka marwadiisa golaha xukuumadda golayaasha kale ee qaranka waxaan uga mahad celinaynaa degmooyinka ay bixiyeen ee ku soo biiray degmooyinkii hore ee gobolka Awdal u lahaa kuwaasi oo ay ka mid tahay degmada Cali Xayd iyo degmada Xeego kuwaasoo bariga iyo galbeedka ee distrigii hore baki loo oran jiray ku yaala labadabana beesha aan ku hadlayo magaceeda ay labadaba degan yihiin oo ay ka yihiin beelaha hormuudka ah anigu oran maayo sida ragga qaarkii aniga baa kala fogeyna mayno ummaddu way wada degan tahay nin waliba wuxuu ka yahayna waa la arki doonaa iyo doorka uu ku leeyahay waa la wada degan yahay deegaanka Xeego waxa isugu yimaada beelaha Gadabuursi say u dhan yihiin way wada degan yihiin beelaha ugu beeraha iyo deegaanka badan saameynta badan baan ka midnahay degmada Cali Xaydna waa sidaa iyo kadaalika oo waxa weeye beelaha hormuudka ka abaanahay muhiimadana beelaha Habar Muuse ayaa ugu balaaran baasamaroonna way deganto kama maqlo golkaan baasamaroon leeyahay maaha baasamaroon reerkii loo yaqaanay dhasari Gebile maaha waa baahada Gadabuursiga nacam baaha uu yaalaa laakiin hormuud waxa ka beelaha Habar Muuse oo koow aan ka nahay hadaan nahay beelaha reer Maxamed sidaa darteed waxaan soo jeedinaynaa hambaliyo u jeedinaynaa iyo bogaadin xukuumadda sidaan horeba u hambaliyay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan codsanaynaa beelaha ku abtirsada iyo xukuumaddu inaanay noqonin magac uun dhastrinimadu aanay magac noqonin laakiin milgaheegii iyo sharafteedii loo kaco loo dhamaystiro loo dhiso intaas baan ka codsanaynaa taas waa taa qodobka labaad labada wasiirada beelaha reer Maxamed ee isbedelay wasiirkii hore ee golayaasha tiknoolajiyada iyo cilmi baarista Ali Xamed Jibriil oo xilka laga bedelay imika waanu sagootiyeynaa waxaan uga mahad celinaynaa muddadii uu joogay wax qabadkiisa wasiirka cusub Axmed Xaaji Daahirna waa soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa horaba siyaasigii beelahan uu ahaa muddo badan buu wasiir soo ahaa maantana haddii uu noqday waan soo dhaweynaynaa waxaan ka sugaynaa waxqabad iyo horumar inuu soo kordhiyana waan ka sugaynaa xilka in Ilaahay ku asturana waan ugu ducaynaynaa oo horumar iyo magac ka keeno qodobka saddexaad ee halkan aan u fadhiisanay waayadani malaha harbaaba nasaarmo mugdi baan yar galay nin aroosa nin heelada aad u ciyaari jiray oo wilwilaha aad u yaqaanay baa gabadh loo aroosay isagoo aroosoo loo ciyaaray uu dhaliilay ciyaartii ragga aad ugu baasda u ahaa uu soo kacay oo wuxuu yidhi awalba waan qalaadinayay caawa isagoo qudhaydii buu yidhi ninkii loo ciyaarayay baa gegada ku dhacay waarana qoladan degmooyinka la siiyey ee la saaciday
حكومته كواب ترسانيسا أيان نحي وعما نقلنا مدعوينها مروديسة مدعوين كحيك مروديسة وسيرة كوكو ياشا سلام صدق بيسا قرآن كابا سلامين وحن لنا هاي دقمدا دقمويك اللي دقمين اللي بحيي والسجيف عقلك الشيغي وحبوه كمتقين ونوها بليينينا وانا نالايو الله وضبا وهالك يقوم قولان هاي هربلا ما يتقين عسكي داهو ولا أكيد دولان ديكاليه وصوبح الدونا labadaba waxa yeeshawana la haday beertay haday tuultahayba wana la waxaan leenahay habal iyagana waxaan balyeena dawladda waxa salaamay laba wasiir la isku bedelay ali marka la yiraahdo isagoo wasiirahay buu ku rogmaday saraw soo qaado isbiimeeyay saddex aqliyaas isaga ayaan hayn saddex aqliyaas aan hayn uu isbiimeeyay رصاصي ولا تودق ندرج مريا ودركاسي ولا مري واي وسيرتي هوري ورا عديو كحيجيكو ويا قدري دلكو رغمدو هوس دحاي يودنيسا دلتو قالو كسو ساره ما نقاسو ليها انت ضد الشغاليه قياس مالي فلا المحامي اي جعل كانها hortoro walaha waxaan leeyahay horu soo maray Ahmed uu ka horeeyay nin walba soo maray kii hore mahandaq buu nagu leeyahay mahandaq buu soo wasiiraan buu qabtay oo loo yahay ma garatay ariga wasiirkadi waayay ee wasiir madaxweynaha waayay buu dhurta u galay soo wasiiray u soo saaray soo ma garin mahandaq buu leeyahay eraka adeerka hore Ahmed Xaaj Daahir horena wasiiruha hatta mid wasiir ma qasay waa laga sugaya horena waa laga sugay wixii uu qabanayay in hadalku waxa weeyaan ta laga dhawaajiyo weeyaan waxa weeyaan degmooyin waxaan salaameynaa marka ugu horeysa in bogaadin u jeedinaynaa iyo maaragtay maxaan u jeedaa hambaliyo u jeedinaynaa madaxweyne ku-xigeenka marwooyinka madaxweyne ku-xigeenka wasiir ku-xigeenada dhammaan xukuumadda Soomaaliland ee qaranka ayaan u jeedinaynaa hambaliyada kadib waxaan ugu hambaliyaynaynaa degmooyinka ay bixiyeen ee ka tirsan gobolka Awdal khaas ahaan degmada Baki waa Xego iyo Ali Xayd waxa weeyaan sida jiif caaqilku hore ugu sheegay degmooyinka dadka aqlabiyada degan baan nahay sheegana mayno oran mayno anaga degan laakiin ninka degan waa la arki waana la yaqaanaa si fiican waa loo yaqaanay horena waa loo yaqaanay imikana waa la arki doonaa waan deganahay dadka kale walaalahay ee qaar leeyihiin annaga ay leeyihiin way degan yihiin laakiin anagu oran mayno sidooda oo kale annaga oran mayno waa samar gadabursi dhamaantii uu degan yahay beelaha samaroon baa ku dhan waxa weeyaan hal loo kala badnaado dadka u badan baan nahay taas waa taa waxa weeyaan sida aan ugu hambaliyeenno si qaali aan ugu hambaliyeenna maamulka kulmiye dhamaantii saasaan ugu hambaliyeenna iyo sharafta ay u soo jiideen gobolka ay degmooyinka ay ku bixiyeen iyo aan ugu hambaliyeenna boqolkiiba boqol baan ugu hambaliyeenna taa markaan ka gudbo talabaad waxa weeyaan wasiirada walaalaha ah ee la kala wareejiyay xilalka loo kala wareejiyay ee midna hore uu joogay midna imika loo wareejiyay kii horena sida jiif hubaydu waan ku sabootiyeynaa kan dambana waxaan ku soo dhaweynaynaa xilka loo dhiibay allaha ku asturo waxaan ka sugaynaa wax qabad baan ka sugaynaa waxaan leenahay waxa weeyaan wax qabadka aan ka sugayno ilaahay kugu asturo taasina waa tii labaad baa ku habaryeeyno oo horta la barkow waxa ku habaryeeynaa beesha reer Maxamed oo halka saaka shirka jiraad ku qabatay way bishu taasha taxiyada waxa kale waxa baryeeynaa kuwa oo raga hore ku hadlay ku kala mid ahay madaxweynaha iyo madaxweyne xogeenka iyo golaha wakiilada oo ku salaamayno degmada ay maaragtay soo ay keeneen iyo golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland waliba xukuumadda kulmiye oo ka midnaay luqadda horena uga mid ahay eegana ka midnaay waa ku habaryeeynaa
waxaana taariyeynaa labada degmo ee la bixiyey baa taariyey waa intii inay ka sokaysana waa inaga mahadnaqnay waan la yar daahnay oo annaga oo yar kalma maqnayn iyo kalba la yar daahnay in maantoo joogno ayaa ilaahay ka dhigay aad iyo aad baan u habalyeynaa labada degmo waxaan ugu habalyeynaynaa dadka waxaa laga gartaa ninka dhulka sheeganayo iyo ka kale iskuma eka annagu waa degannahay waa degaan balad noqona ilaahay baana na dhigay sidaasaanan lagu odhanay annagaali iyo annagaala midna odhan mayno dadka ku soo dhawaynaynaa inuu dadku u bislaado uu barto sida haddii alla yidhahdo kolba qawaanintu tahay ama sharcigu yahay haddii degmooyinka la bixiyey dee dad baa loo baahan yahay ninka anaana lihi dee bayar garanayna ninka kolley waxaa ku wadaa waa weerarkaasi weeyaan ba ku wadaa waa weerar u balmalaynayna laakiin annagoo degan oo dadku oo beeraha samaroon og yihiin oo ummaddu og tahay oo beeraha iyaga ay yihiin oo degaa ku nahay marna odhan mayna annagaana haddana afkay ka soo bixi sidaa waa ku kala duwannahay beeraha gadabuursi kuwa degta isaga siteeda annagaan iyo xaala waa ku kala duwannahay sidaasaan ugu habalyeeynaa waxaana doonayna dowladda ka rajaynaynaa inaan wax laysa magacaabina noqonin loo dhammeeyo dhismaheedii qalbi waxay lahayd iyo oo la dhisaan doonaynaa oo cid walba ciddii ka qayb gashaaba hadday gobolka tahay iyo hadday somalilan tahayba dad birinta soo ogol baana ciddii walba ka qayb galaysa maamulkooda la isugu yimaado maamul ahaanna cid naga xigtaa ma jirto ka sheegan mayna laakiin waa doqoniimo meel arrin kuu soo biiray oo ilaahay kuu keenay inaad tan iska sheegdo anagu laa tidhaa waa nacasnimo weeyaan anagu ma sheegayno saasaan taasu waa sida kale ee de wasiirada walaalahaya waa labadii wasiiro walaalahaya ahaa waa la isku bedelay inankii hore loo joogayey waxqabad badan buu yeeshay wuu shaqeeyey intaasoo iskuul buu dhisay oo sababtiisa ku timid haddii maanta la bedelena wanu habalyeynana wuu iska soo noqon wuu ku soo noqon doonaa haddii alla ka kale oo aniga de waxaba lagu timayo saaxiibkay buu ahaa muxuu ahaa in badan waa soo dhasaqayn axmed xaaji daahir waa ku taaliyeeyey taaliyad baa kuu soo diray kan iyo laaba waa ku soo dhawaynaynaa meeshaaduna iyadoo kulmiyo ah waa kuu diyaar waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamuud siiraayo iyo marwadiisa madaxweyne ku-xigeenka iyo marwadiisa waxaan uga mahadnaqaynaa sidii ay odayaasha horeba soo sheegeen degmooyinka ay bixiyeen ee ay ka bixiyeen degmada baki berigeyga iyo galbeedkeyga waan uga mahad celinaynaa imika dhulka lama degayo oo xagga degaanka marka la yidhaahdo waxaanu nahay haddaanu nahay beesharee maxamed hormuudka ayaanu ka nahay labada degmaba waan degannahay taas saasaan uga mahad celinaynaa waxa kale oo aan mataqaanaa sheegaynaa oon halkan aanu ka sheegaynaa xarunta baki waxay ahayd gobolkii baki bay ahayd in xarunteedii ay ahayd ee ay ku magacawnayd ee gobolka ahayd inta uu xusbiga kulmiye uu shaqaynayo annagoo rajaynayna inuu dibna u shaqayn doono in sideedii ay ku magacawneed ay loogu soo celiyo oo ay gobolkeygii noqoto intaa waxaan ka codsanaynaa xusbiga madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaan ka codsanaynaa waxa weeyaan golaha degaanka ee degmooyinka la bixiyo calixaydh iyo xago waxaanu leenahay maadaama aanu nahay beelaha hormuudka ka ah waa in dhismahooga layskugu yimaadaa oo ayna qolana keliya ayna faragelin oo si xaqa loo qabsada waanu mahad celinaynaa wasiirada ka hadli maayo odayaashaba ka soo hadlay
waase uga hadleen baan ku taageersanahay